السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام ميل كستو أجوكتان iyo si kasta oo aad noo daawanaysaan waxaa jira dad asxaabtooda ehelkooda qaraabadooda cidda ay la nool yihiin iyo sidoo kale cid walba oo ay u tagaan amaba ay ka dhow yihiin ay aad u dhibsadaan dadkani wax kale laguma dhibsado dhididkooda ayaa soo ura oo aad u qarmuun ama haddii aan si kale u dhigo dadkani waa ay shiiraan haddaba dhididkani qarmuun amaba shiirkan dadka qaba laba ayay u kala baxaan waa dad xanuun u keenay iyo dad aan ku wanaagsanayn dhinaca nadaafadda sidoo kale waxaa jira dad iyagana gacmaha ka dhidida oo iyaga qodhoodu dhibaato ku qaba gacmo dhididka iyo sidoo kale dad lugaha ka dhidida oo lugahoodu ay markaasi ay buuqaan haddaba sideeba si dabiiciya dadkaasi ay isaga daaweyn karaan xanuunkan waa iska xanuune dhididka qarmuun ee ay dhibsanayaan dadkana ay ku naceen waa kan Sheekh Xamsa Axmed oo inoo faahfaahinaya qaabka ugu habboon ee si dabiiciya qofka uu isaga daaweyn karo maanta waxaan ka hadli doonaa mowduuca ku saabsan dhididka bilaa-aadmiga dhididkaas dadka saddex qaybood buu u dhibaa dadka saddex qaybood dhididku ayuu u dhibaa qofka dad waxaa jira cagaha ka dhidida oo markay socdaan kabuhu la siisiibtaan cagihiisana aad uga dhidida oo la dhibaataysan sida oo kale waxaa jira dadka qaar gacmaha ka dhidida marka ay wax qorayaan aba marka ay wax qabanayaan gacmaha aad uga dhidida la dhibaataysan oo la dhiban dhididka gacmaha ka saddexaad insha allahu tacaala waxaa jira dad markay dhididaan shiirkoogu uro oo ur xooga uu sameeyo dadka noocaasa ee shiirkoogu uro isaga lafdigiisa ayaa shakhsigu iskaraxsada ambase cidda ku dhow ayaa aad u karaxsata saddexdaa arrimood waa saddex arrimood oo jira dadkuna qaarkood ay leeyihiin lana dhibaataysan yihiin kan gacmaha ka dhididaya haddii uu is idhaahdo wax qor dabcan waraaqda wax ku qoraayo gebigeeduba way qoydaan kan cagaha ka dhididaya haddii uu is idhaahdo soco ambase haddii uu cararo amba haddii uu baqo lugaha ayuu ka dhididaa had iyo jeeraalana kabaha ayaa la siisiibtaa kan kilaankisha ka dhididaya ee markaasi ka shiiraayana asagu dadka way karaxsadaan asaguna waa iskaraxsadaan haddaba saddexdaa dhidid ee aynu ka sheekeenay sidee ayaad isaga daaweyn kartaa qaabkee ayaa ugu fudud oo aad isaga daaweyn kartaa dhididkaas aynu soo sheegnay ee saddexdaa qaybood u qaybsamaya insha allah iminka ayaan kuu sheegayaa tafaasiisheeda ka faa'iidaysa baaraka allah fiik halkan waxaa ii yaala waa xabad liindhanaana waa hal xabo oo liindhanaana oo dabcan kala go-an oo aad soo kala gooyay hal xabo oo liindhanaana ayaad soo qaadanaysaa subaxa hore intaanay qoraxdu soo bixin subaxa hore inta jawigu qabow yahay qoraxduna aanay soo bixin ayaad hal xabo oo liindhanaana soo qaadanaysaa waad kala goynaysaa saas markaad u kala goyso dabcan waad iska dhuujinaysaa oo waxaad dhuujin doontaa inta hore ee iniyuhu soo raacayaan inta hore ee iniyahaasu soo raacayaan waad iska dhuujin doontaa kadibna markaad intaas iska dhuujiso iniyahaasu ka soo wada baxaan intaa hore aad iska saarto waxaa soo hadhaya galkii iyo xoogaa yar oo biyo ah oo ku hadhay insha allah intaas ayaad soo qaadaysaa haddii aad ahayd dadka aad u shiira kilaankisha ka shiira oy dadku karaxsadaan ambase asagu iskaraxsada haddii aad ahayd waxaad ku faxsi doontaa kilaankishaada ayaad xoog ugu faxsi doontaa ilaa inta aad galka iyo isku dhammaynayso jidhkaaga yacni galka iyo jidhkaaga intaad isku dhammaynayso waxaan ka wadaa biyahaas markay ka wada baxaan waxaad ku faxsi doontaa galka hoose ee cad ee soo baxa ayaad ku faxsi doontaa waan ku tusi doonaa insha allah in yar waan ku tusi doonaa si aad insha allahu tacaala aad uga faa'iidaysato si wanaagsan yacni hadda way wada dhammaatay galkaas cad
ayaa la doonayaa in uu ku googo'o jidhkaaga kilaankisha inuu ku googo'o galkaas cad kadib saas markaad ku dhammayso jeexa kale ayaad soo qaadan doontaa sidii aynu hore u sheegnay waad dhuujin doontaa inta iniyuhu ka soo baxayaan iyo biyaha hore kadibna sida oo kale kilaankisha kale ayaad ku facsi doontaa ilaa inta galka iyo jidhkaagu isku baaba'ayaan sida aan hadda kuu sheegay kaas waa qofka shiiraya ee asagu isdhibsada asagu iskarahsada ummaduna karahsadaan waxaa inoo soo hadhay insha allahu tacaala qofka gacmaha ka dhidida qofka gacmahan ka dhidida haddii uu wax qorayana warqadu ka qoydo haddii uu naxana gacmuhu xoog uga dhidida qofkaas asaguna sida oo kale waxba kama bedelayo sidaa aynu sheegnay oo kale ayuu sameynayaa jeexa hore gacmaha halkan baabacada ilaa iyo intaas ilaa iyo bartaas ayuu ku facsi doonaa marka uu si fiican ugu facso wuxuu gelin doonaa halkaas laablaabka faraha ayuu si fiican ugu facsi doonaa intaas markuu ku facso insha allah wuxuu u rogi doonaa gacantiisa xagga kale laftaas wixii xaggan ka soo xiga ayuu si fiican ugu facsi doonaa ilaa inta ay isku baaba'ayaan galka iyo jidhkiisu sida aan hore idiin sheegay intuu galkanu soo googo'ayo sidoo kale gacanta kalena insha allahu tacaala markaas ayuu bilaabi doonaa saas ayuu ugu facsi doonaa dhankan uu ka bilaabayaa halka baabacada ayuu ka bilaabayaa intaa baabacada oo dhan oo halkaa ka bilaabmaysa markuu si fiican ugu facso haddana wuxuu gelin doonaa meelaha laalaabka faraha dhexdooda sida aan soo sheegay kadibna xagga kale ayuu u rogi doonaa lafta wixii xaggan ka soo xiga ayuu xoog ugu facsi doonaa insha allah waa kii gacmaha waxaa inoo soo hadhay qofkii cagaha ka dhididayay haddii uu sidhaahdo carab kabuhu la sii siibanayeen ee la dhibanaa cagaha asaguna cagadhididka qofka cagadhididkale laftigiisa cagihiisu way soo uraan haddii uu buudh xidho ambase haddii uu kaba xidho way soo uraan cagihiisu sida oo kale qofkan gacmaha ka dhidida xataa asaga laftigiisu gacmihiisu way soo uraan oo xubnahan meelahan bambanaan ayaa ur sameeya marka insha allahu tacaala liintan waxay kaa gaxayn doontaa urtii iyo dhididkiiba way kaa gaxayn doontaa waxay noo soo hadhay qofka cagaha ka dhidida insha allah asaguna wuxuu samayn doonaa baabacada cagaha ayuu ka bilaabi doonaa sida gacmaha aynu uga bilownay dhammaan baabacada markuu xoog ugu facso waxa uu marin doonaa haddana meelaha ay iska soo galaan faraha cagahu ayuu marin doonaa kadibna lugta dusheeda ayuu marin doonaa ilaa iyo halka ay lugtu saas uga laabmato ayuu gaadhsiin doonaa xoog ugu facsi doonaa ilaa inta diirkaas iyo jidhkiisu isku baaba'ayaan kadibna lugta kale ayuu u wareegaya insha allah arrintan waa arrin jirta oo dadka badankoogu yaanan oranay dadka badhkood ay la dhibaataysan yihiin qaarkood gacmo dhididka qaarkood caga dhididka qaarkoodna shiidhkooda oo ura ambase askartooda oo kacda askarta qofka ayaa kacaysa kadibna qofku asagaaba isdhibsanaya dadka u dhowna way dhibsanayaan marka baaraka allah fiik ka faa'iidayso waa jaanis wanaagsan oo wacan oo aad ka faa'iidaysanayso lacag la-aan ah markaasi si yaroo fudud kuu soo galay oo aad kaga faa'iidaysanayso caafimaad taama oo ilaahay subxaana wa tacaala kaaga gaxaynayo dhididka iyo urta gacmaha laftigoodu way uraan meelahan ayaa ur sameeya luguhuna waynu aragnay qofka sidiisa kale askartiisa u kacdana waynu aragnay marka insha allahu tacaala jaaniskan ka faa'iidayso walaalahana gaadhsii baaraka allah fiik assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh waa hagaag waxaan rajaynayaa in aad ka faa'iidaysateen habka ugu wanaagsan ee la isaga daaweyn karo dhididka faraha badan ee dadka qaarkood dhibaato ay ku qabaan iyo weliba shiirka iyo urta waad ku mahadsan tihiin sida wanaagsan ee aad mar walba aad noo daawataan halka aad nagala socotaanna waa beejka iyo janalka bulqaas media fadlan haddii aad ku cusub tahay beejka iyo janalka bulqaas media ha iloobin in aad subscribe like iyo follow aadna soo tidhaahdo haddiise aad tahay macmiil soo noqday hanaga ilaawin in muuqaalkan aad sheer garayso oo asxaab badan aad la wadaagto wixii tale iyo tusaale ahna waxaad noogu soo qori kartaan dhinaca commentiska iyo sidoo kale
messageska aad ayaad u mahadsantihiin